السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو وحسن عثمان. برنامجكان waxaan ku falanqayn doonaa dagaalka ka socda waqooyiga dalkaasi Itoobiya. Bal aan marka hore isla falanqayno qodobadaani. Dagaalka gobolkaasi ka bilowday ee dawladda federaalka dalkaasi guul ma ka soo hooyi kartaa. Ma kula muuqataa dagaalkaasi dhanka waqooyiga dalka Itoobiya ka socda inuu la mid yahay dagaaladii dhex maray dawladdii Soomaaliya iyo jabhaddii SNM. Ku soo dhawow mar kale falanqaynta dagaalkaasi. xaqiiqdii dagaal waa laba gelin oo ma jirto asbaab gaar ah oo guul lagu gaari karo inkastoo qaacidada dagaalka ay kaalin ka qaadanayso garashada dhulka iyo biyada ee markaad fiiriso goobta uu hadda dagaalka ka socdo oo ah hareeraha caasimadda Tigreega Mekele waa caasimad aad u dhisan wax aad ugu hareeraysan buuro aad u dhaadheer way adkaanaysaa in ciidanka federaalka ay infantry ahaan ama iyagoo lug ku socda ay galaan Mekele ee aniga ka shakhsi ahaan Xasan waa meel aan tagay waxaa maray gobolo badan oo waqooyiga dhaca sida Mekele, Adwa, Aksum ilaa iyo meel lagu magacaabo Shire. Mekele waxay xarun u tahay ciidanka ugu badnaa dalkaasi Itoobiya sababtoo ah waxay difaac adag ugu jireen dalkaasi Eritrea walow ciidan federaal ah oo isku dhafa halkaasi ay joogeen laakiin waxaan qofna loogu xog warami karin in maamulka Tigreega hubkii ugu badnaa ay ku keedsanayeen gobolkaasi gaar ahaan Mekele, Shire, Adigreed raama meel lagu magacaabo aan filayo inay Adwa ka tirsan tahay oo xuduud dhow la leedahay Eritrea dhammaantood goobahaasi aan soo xusay waxay ku teedsan yihiin xuduudaha dalkaasi Eritrea markaad fiiriso Soomaalideena waxaan Tigreega ka aaminsanahay inay yihiin qoomiyad yar oo si fudud lagu soo afjari karo dabcan Tigreega marka loo barbar dhigo qoomiyadaha kale sida Oromada, Soomaalida iyo Amxaarada waa ay ka tirayar yihiin laakiin markaad si dhab ah u qiimeyso shucuubta ku nool gobolkaasi shantii qofood mid ama laba qof ayaa ciidan ka ah kuwaasi oo noqon kara military ama dharcad ama boolis waxaana taasi ku ogaan kartaa markaad dhex tagto magaalo madaxda caasimadda u ah Mekele markaad eegto awoodda iyo qorshaha hadda ku dhaqmayaan Tigreega waa qorshe oo mar hore uu dajiyay odaygii dalkaasi xukumayay ee Malis taas oo ahayd in hubkii ugu badnaa la geeyo gobolada waqooyiga waliba maamulka hubkaasi cidda gacanta ku haysa ay noqotaa Tigreeg ciidanka dawladda federaalka Itoobiya waxaa dhici karta inay ku adkaato inay weerar kaga qaadaan goboladaasi xagga hoose ama dhulka sababtoo ah Tigreega waxay leeyihiin ciidan u dhisan si jabhadnimo ah ama u qaabaysan jabhadnimo iyaga oo waliba heli kara ciidankaasi hub walba oo ay haystaan militariga kuwaasi oo ku daadsan ama ku teedsan buuraha deegaanada dadka ay ku badan yihiin iyo xaafadahaba sidaas darteed ciidanka cirka Itoobiya waxa aad uga adkaanaysa inay weerar xagga cirka ah ku sii wadaan gobolkaasi maxaa yeelay gobolada waqooyiga Itoobiya waxa ugu badan ee la geeyay xilligii Malis waxay ahaayeen hubka difaaca cirka madaafiicda goobta sanad waliba ciidanka Itoobiya ay leeyihiin ayaa halkaas yaala 45% ama ilaa 50% wayna adag tahay karaayi ahaan in ciidanka Itoobiya ay si fudud ku galaan dhanka cirka iyo dhulkaba markaan u nimaano qodobka labaad ee ah mukula muuqataa dagaalka dhanka waqooyiga dalkaasi Itoobiya ka socda inuu la mid yahay dagaaladii dhex maray dawladdii Soomaaliya iyo jabhaddii SNM oo goonigoosiga doonaysay dabcan dagaalkaasi markaad si qoto dheer u fiiriso wuxuu ahaa burburkii dawladnimada Soomaaliya walow ay dawladdu ku andacoonaysay in dalka la kala gooyo aysan wanaagsanayn waana mid maanta mid la mid ah uu ku andacoonayo Abiy Ahmed markaad isbarbar dhigto sheegashadii gooysta gobolada waqooyiga Itoobiya midii Soomaaliya waa laba mid oo aad isu shabaha haddii aad midda Soomaaliya eegnana waxay ku dhamaatay sacbamarnaan oo gobolkii sheegtay inuu go'ay wali sidaasi ayuu u maqan yahay waxayna gobolada waqooyiga iyagana ka faa'iideysteen hubkii ugu badnaa oo dhankoodii dawladda Soomaaliya dhigtay oo sidaasi ay gacantooda u galay marka haddii aan wada xaajood dhab ah isku soo dhawaansho laga helin labada dhinac ee ku dagaalamaya Itoobiya waxay u badan tahay sida aan ka Soomaali ahaan casharkan hore u soo aqrisanay inay gacmo marnaan iyo dhiig ku soo dhamaanayso